mas-uuliyiinta xisbiga wadaniga ee gobolka Togdheer oo kulan wareed ku qabtay xarunta xisbigaasi ee magaalada Burco ayaa cambaareeyay xariga xubno kamid ah madaxda xisbiga wadaniga heer qaran oo ay boolisku xabsiga u taxaabeen sabtidii aynu ka soo gudubnay dhacdadaasi oo ka dhalatay dhageysiga maxkamadda ee eedaha loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo dhowrkii toddobaad ee aynu ka soo gudubnay ku xidhnaa xabsiga magaalada Hargeysa xubnaha xisbiga wadani ee la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyay xukuumadda Somaliland inay caburin iyo cagajugleyn ku hayso bulshada iyo mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani ee dhaliilaha hanaanka shaqo ee xukuumadda. waxaanu ka xunahay maalin walba dhibaatada iyo gilgilka iyo kabkaga joogsiga xisbiga wadani lagu hayo madaxdiisa heer qaran. xukuumaddii maanta waxay arrinkii ka maraya iyo xisbigii kulmiyay arrintoodu waxay maraysaa afar ninan oo dhageystayaal oo yiraahdo arrinta wax weeyaan maxkamadda la celin maayo ee hal qaado wixii kiis lagu hayay ay yiraahdaan in 100 milyan rasaas lagu rido qaarkoodna jirdil lagu sameeyo imka dhakhtarka ku yaalan. waxaan leeyahay xukuumadda war sida cid idinkaga tagta oo idinkaga fogaatay mooyee cid ku helimaysan. xukuumaddu iyo xisbiga kulmiyay markay arkeen ku biiritaanka iyo mowjadaha faraha badan ee iska daba imanaya ee xisbiga wadani ku soo biiraya ee arkay inay xiro maran hor joogan ayay taladoodii waxay noqotay waxna xidha waxna rasaas ku rida waxna dhaawac. war annagu wadanka waanu u tudhaynaa horena waanu ugu tudhaynaa imkana waanu u tudhaynaa sida yeelmayno. waxaynu hore uga baranay ma ahayn boolis rasaas bilaaba oo dadkii ayagu dhexda u hayeen dagaal ku bilaaba fooxla liis buu sito wuxuu hebel iyo hebel baan qabanayaa waa sharci darro sharciga dalka waa lagu tuntay. halkan waxaan isku nimi inaan ka cabaarayno falkii loo geystay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani iyo xogayii arrimaha isboortiga. waxa aad uga xunnahay in dhalinyarada oo ah u wixii sabab wadanka in la caburiyo. waxaan dul qaadanaynaa xisbiga wadani haddaynu nahay waxa weeyaan ku jiqsi hal la dagaalami mayno. xisbiyada mucaaradka waxay u taagan yihiin oo mandatekoodu yahay inay dhaliisha xukuumadda farta ku fiiqaan qaladka xisbiyada mucaaradka ee mandate-ka u leeyihiin ku tusayaana qaado. waxaan cambaaraynayaa xarigii mas'uuliyiinta xisbiga laakiin waxaan leeyahay wadamada daneeya dimuqraadiyadda iyo hay'adaha xuquuqul insaanku waa inay si dhow ula socdaan waxa ka socda Somaliland. arrin bay ahayd dhigan xilligii madooba iyo waqtigii dawladihii kacaanka iyo militarigu hogaaminayay ku astaysan ama u eegsasaankeedii. Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.